wasalaamati saaxiibayaal kuna soo dhawaada kanaalka nooga barteen dhankaas iyo teknolojiyadda insha Allah maanta muuqaalkan la wadaagay wuxuu ku saabsan yahay sidee markaas aan Facebook aan isticmaalo aan oga sameyn karaa lacag Facebook inaad lacag ka sameyso aad iyo aad bay u fududahay sababtoo ah Facebook waxaa isticmaala dad aad iyo aad u badan sida YouTube loogu isticmaalo waxaa ka badan isticmaalka la isticmaalo Facebook kaasoo ah yacni qof walba oo wuxuu sameystaa ciwaan marka adiga waxaa sameysanaysaa markaas ciwaankaadi ayaa waxaa sameysanaysaa inaad markaas aad ku dul sameysto markaas Facebook page kadib markaas aad video aad soo geliso aad adigu leedahay kadib markaad videoda aad soo geliso kadib markaas aad Facebook page kaada aad lacag u furato sidaan aad ku hesho lacag haddaba Facebook page sideen horta lacag uga sameyn karaa horta Facebook page asaga markaas saa u furato kaliya lacag kama sameyn kartid sababtoo ah wuxuu leeyahay shuruudo ayuu leeyahay shuruudaha maxay tahay waa in yacni Facebook page kaada markii aad sida u furato waa in 60 maalin ay ka soo wareegataa yacni waa in aad 60 maalin aad ka soo wareegataa halka hadaad fiiriso wuxuu ku leeyahay 600,000 total minutes views waxaa laga baahan yahay 600,000 oo views oo haddana midkiiba laga daawado markaas 1 daqiiqo ayaa laga baahan yahay kaasoo ah yacni markaas 60 beri markii ka soo wareegato haddii yacni aad tahay qof yacni caan ah oo social media caanka ah kaasoo ah yacni Facebook aw YouTube si lahaa YouTube caanka haddii markaad aad Facebook aad sameysatay page kadib aad muuqaalo kale oo cusub ku soo gudbiso markaas dadkii YouTube-ka aad ku isticmaashay xaggaas kuula wareegaan markaas ay dad badan ku daawadaan aad adigoo 2 bilood gaarin aad markaas aad ku hesho daqiiqada hada ku hesho marka Facebook markaas ma ogolanayso inaad lacag ka sameyso waana sugtaa 2 bilood adigoo 2 bilood markaas sugto kadib markaas ayay ku soo fasaxayaan mid kale laga rabo waxay tahay yacni waa inaad iska ilaaliso markaas copyright wax la dhaho copyright hadaad garanayso waxayeen Facebook page kaada waa inaad ka ilaalisaa markaas muuqaal aad adiga lahayn inaad soo geliso muuqaal aad yacni aad adigu lahayn inaad soo geliso muuqaal ka soo qaado kale hore hadii Facebook loo soo dhigay kadib markaas wuxuu ku saarayaa copyright markaasna lama ogolo Facebook adoo copyright ku saaran yahay inaad lacag ka sameyso way ku soo diidayaan kuma soo aqbalayaan marka isku day markaas inaad video aad adigu leedahay aad duubto xil kasta Facebook wuxuu u baahan yahay wax cusub in la soo dhigo markaas ayuu ku aqbalayaa laakiin wax hore loo dhigay hadii aad dhahdo waan ku celinayaa in aad markaas uu ku diidayaa mid kale waxay tahay yacni in aad markaas aad videoda aad soo dhigayso inaad u fiirsataa videoda waa inaad ka ilaalisaa in ay noqdaan video leh dhiig inuu videoda yeesho yacni video dhiig qofka daawanaya inaad taas soo duubto ama meel shil ka dhacay oo gaari oo dhiig qofka daawanaysa inaad soo dhigto Facebook lama ogolo lama ogolo markaas lacag kama sameynaysid marka wuxuu ku qaban xataa community guidelines oo 3 jeer hadii lagu qabto markaas Facebook wuxuu ka baxayaa hawada haddaba markaas Facebook waxa kale oo Facebook ogolaan waxay tahay yacni inaad soo dhigto markaas waxyaalaha qaawan inaad soo dhigto midana ayana Facebook ma ogolo sababtoo ah yacni inaad video qala qaawan yahay ama roox qaawan inaad soo dhigto inaad taas kama sameyn kartid lacag marka haatan sidee ku ogaan karaa markaas yacni in aan buuxiyo shuruudaheedii kaliya waxa la soo dhigaysaa marka Facebook page ka aad sameysato Creator Studio insha Allah muuqaal ka sameeyana si Facebook page loo sameysto Creator Studio aad ku dhulfanaysaa kadib markaad ku dhulfato kadib markaas wuxuu keenayaa halkan hadda sida uu wuxuu leeyahay Facebook page kaada 7 maalmood u dambeysay wax la daawaday malahan sababtoo ah yacni Facebook page kayga waxay ugu dambeysay xilli hore yacni wuxuu haystaa hadda 2,000 followers ay u dhow yahay marka waxa ugu dambeysay xilli hore marka waxa laga baahan yahay markaas in aad markaas si aad ku ogaato qaybta aan last ka imaanaysaa kadib 7 days ayaad markaas waxa ka dhigaysaa markaas 28 maalmood markaas waxa laga baahan yahay markaas adiga 60 days hadaad ka dhigto ayada ama 90 days markaas waxa laga baahan yahay halka noqoto markaas 600 oo minutes ama views labada mid ay la rabaan noqoto markaas ayaad waxa yacni aad ku helaysaa markaas waxay ku oggolaanaysaa lacagta mid kale waa inuu page kaada uu helaa markaas 10,000 oo followers hadduu page kaada 10,000 oo followers iyo 6,000 views haddii uu haysto
lacag waad ka samayn kartaa. Sida kaleeto had markii aan Facebook page-ka aan shuruudihiisa buuxiyo wadankee ku xiran karaa. Wadanka Soomaaliya looma ogolo sababtoo ah weli looma soo furin. Soomaaliya hadda video xilligan doonaya waxayeen waa 2022 bishii January 2. Marka way dhici kartaa markaas in xilli kaleeto ama videogaada hadda dawanayso in markaas xilli kaleeto loo soo furay markaas Soomaaliya. Marka haatan aan hadda sanadkan aan ku jirno looma soo furin Soomaaliya in markaas Facebook-gaada lagu saaro xayisiin. Marka haatan yacni haddii aan Soomaaliya joogo markaas maxaan Facebook iskaga daalinayaa oo markaa daan lacag ka sameyneynin. Sidaas adihin kaliya waxa laga baahan yahay markaas qof wadamada kale joogo wadamada la ogol yahay waan sheegi doonaa. Qof markaas wadamada kale joogo in aad ku xirato si markaas yacni address-kiisa ay ku xiranaysaa kadib markaa qofkaas ay lacagta u tagaysaa. Markii qofka lacagta u tagto kadib markaas adigu waxa sameyntaa markaas qofkii ayaa ku soo diraya lacagtaadii. Marka sidaas fudud ayaa ugu xiran kartaa. Marka dalalka Facebook lacagta lagu ogol yahay waa kuwan: United States, Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru, and Thailand. haddaba markaas Facebook sidaas ugu fudud ayaa markaas waxaad kaga sameynaysaa markaas lacag adigoo markaas gurigaada joogo. haddaba markaas dad ayaa maxayda Facebook waxay u soo dhufteen yani oo garanaya shuruudahan oo buuxiyay. Marka waxay rabaan marka in sida loo buuxiyo in markaas ay daabtaan. Marka muuqaalkan yani haddaan Facebook sida loo buuxiyo shuruudaha Facebook page aan ku sharaxa maayo sababtoo ah yani kii wakaalada ujeeda 1900 ayuu marayaa weli ma buuxinin shuruuda ah yani in Facebook page-kaada 10,000 followers iyo 600,000 oo views weli ma buuxinin. haddaba insha Allah marka muuqaalka insha Allah waxaan ka sameyn doonaa markaas muuqaal sida loo sameeyo Facebook page casri ah marka sida loo maamulo. marka insha Allah intaan ku kulmi doono muuqaalka xiiso banaan doona. billahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.